Amiina iyadoo sida baasaboorka cusub ee Israa'iiliga ah ay dib ugu noqotay magaalada Vienna ee dalka Austria waxa uu ahaa safar ay u ogolaadeen mas'uuliyiinta sirdoonka iyo ammaanka Yuhuuddu. Vienna waxay ugu tagtay qoyskii Moshe aad u murugaysnaa kana murugaysnaa geerida inankooda. dhowr maalmood ayaa halka ku nagaatay si ay qoysku la wadaagto tacsida. Maalmo murugo iyo tacsiyeed oo aad u xanuun badan ayay qoyska la qaadatay ka hor intii aanay dib ula soo bixin baasaboorkoodii asalka ahaa ee Urdun si uu ugu fududaado inay u dhoofto dalalka Lubnaan iyo Suuriya. Waa markii ugu horreysay ay aragto magaalada Beirut. waxay safarka isku sabarteen gabar magaceedu ahaa Khadiija Saaraan oo qodheedu ku sii jeeday Lubnaan. Khadiija waxay ahayd Lubnaaniyada isirkeeda Urdun ka soo jeedo. waxay ahayd baayac mustarad meelad ganacsi oo aad u weyn ku leh magaalada Beirut. Khadiija waxay Amiina magaalada Beirut uga heshay guri yar oo ku yaal xaafadda aynu ramaanahay magaalada Beirut. xaafadan dadka degan waxa u badnaa Falastiiniyiin, sidaa awgeed waxay ahayd goob laga heli karo xogo badan oo la xiriira halganka Carabta ee Israa'iil ka dhanka ahaa. Gurigaas ayaa ay kareysatay waxayna bilowday dadaalkii ay ku raadinaysay warka la xiriira saygeeda. weliba Beirut oo kaliya kumay koobin waraadinta ee waxay si joogto ah u tagi jirtay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya si ay halkaas uga raadiso warka la xiriira dooriyihii Yuhuudiga ahaa ee ay wada joogeen. Magaalada Beirut oo joogitaankeedu u badnaa marka ay firaaqada tahay waxay tagi jirtay meherada ganacsiga dharka ay saaxiibadeeda Khadiija ku lahayd magaalada, waxaanay ka iibsan jirtay dhar aad u badan oo qiimaheedu aad u sarreeyo. muddadii ay Amiina joogtay magaalada Beirut waxay maratay dariiq kasta oo ay ku filan kartay inay ku helayso xog ku saabsan ninkeedii. sidaa oo kale waxay dadaal badan u gashay inay war ka hesho dadka ku dhaqan magaalada Dimashq oo ay dhowr jeer safarro qarsoodi ah ku tagtay. nasiib darrase dadaaladeedu waxay dhammaantood ku soo dhammaadeen faranbarnaan, waxaana aakhirka gaadhay inay ku qanacdo in Moshe uu dhintay. iyadoo quustaas taagan ayaanay dib ugu soo socdaashay magaalada Vienna ee caasimadda dalka Austria. murugo horle iyo wehelaan ayaa u bilowday. waxay weyday cid ay xataa garowshiya uga hesho urkutaallada ay ku abuurtay geerida u soo hoyatay marka laga reebo sawirrada Moshe iyo hadba wixii ka haray raadkiisa oo ay laabta gashan jirtay bil ku dhowaad. markii ay joogtay magaalada Vienna waxaa u bilowday wejigii labaad ee nolosheeda. dawanka taleefanka qolkeeda yaallay ayaa goor habeenbara hurdada ka saleliyay Amiina. haddii ay ahaa bashadhigta kula hadleeshay samiicadda taleefanka waxaa kaga soo baxay codka nin u sheegtay inuu ka mid yahay mas'uuliyiinta ammaanka Israa'iil. bilowgii may garan codkiisa, laakiin markii uu xusuusiyay magaciisa iyo tilmaantiisa waxay garatay inuu ahaa mid ka mid ah raggii ay kulmeen, gaar ahaan kuwii muddada ku waaninayay inaanay u safrin Lubnaan iyo dhulka Carabta. waxa uu si guud uga waraystay xaaladdeeda iyo xaaladda qoyska uu Moshe ka dhashay. intii aanu sii nabadgelayna waxa uu sheegay inay u imaan doonaan 3 mas'uul oo dowladda Israa'iil u soo dirtay. maalintii xigtayna waxa Amiina goor barqaa guriga ugu yimid 3 nin oo markiiba ay garatay inay yihiin 3 nin ee taleefanka looga sheegayay. dhaxalka ay gaarka u heshay lacag magdhow ah oo ay dowladda Yuhuuddu ka siisay ninkeedii Moshe waxa ay isku noqotay lacag ka badan $500,000 Mareykanka ah. waxa ay sidoo kale ka heshay dowladda Israa'iil guri aad u qurux badan oo ku yaala magaalada Rishon LeZion oo ah magaalada afraad ee ugu weyn Israa'iil. waxaa kaloo saraakiishana u sheegay in dowladda Israa'iil ay sugidda amnigeeda qaadayso, sida awgeedna loo samayn doono ilaalo fiican oo amnigeeda sugta. ragga la kulmay Amiina waxay si bareer ah ugu sheegeen markay ay hawshaas u qabtaan waxa ay tahay abaalcelinta laga rabaa. waxaanu kaa rabnaa inaad nagala shaqayso danta dalkaaga Israa'iil oo dabcan adigana dantaada qofeeda, ayaa si kooban loogu sheegay, iyada oo weliba si dadban loogu muujiyey in soo jeedintani ay tahay awood amarka oo kale ah oo ay qasab tahay in la fuliyay. waxaanu kaa doonaynaa in arrintan basaasnimada aad bilaawabasho u aqbasho, ayaa ay saraakiisha Mossad ku yiraahdeen. marka lagu eego indhaha sirdoonka, Amiina waa macdan qaali ah oo aan lacag lagu qiimeyn karin. waa gabar Carbeed oo dalkeedii iyo dadkeedii weyday colaad xoogganna u qabta. waxay hadda ku jirtaa xaalad nafsi ah oo aad u liidata, waxaana ku xeeran cabsi badan. ma haysato hooy ay og tahay inay ku badbaadi karto oo aan ahayn Israa'iil. intaas oo dhammi waa sababo ay ku aamini karaan inaanay diidayn inay la shaqayso iyo inay si hagar la'aana uga soo bixi doonto hawsha loo diro. sirdoonka Israa'iil oo lagu yaqaano xirfad aad u heer sarreysa diyaar umuu ahayn inuu lumiyo fursad kasta oo sahlaysa inay Amiina al-Mufti noqoto basaasad u adeegta. 3 nin si ay nafsiyan u dilaan Amiina uguna sii kordhiyaan caybka ay Carabta u qabtay waxay xusuusiyeen xaaladdeeda nololeed oo ay ku jirtay cabsida mustaqbalkeeda ku xeeran. waxay geliyeen shucuur ah maanta cidda ugu nacab dunida inay tahay Carabta oo sirdoonkooda oo dhammi ku hawlan yihiin sidii ay u dili lahaayeen ama u qafaalan lahaayeen si qarsoodi ahna loogu celin lahaa Urdun. cidda kaliya ee maanta ammaankeeda iyo nolosheeda la doonaysa ay tahay Yuhuudda. waxay aad ugu soo celceliyeen inay yeedhay Carab ayna waxba ka dhaxayn
marka koowaad maaha isku asal oo iyadoo asal ahaan carab ma aha oo waxay ka soo jeedaa qowmiyadda Sharkiska. Marka labaadna waxay u sheegeen in Carabi tahay cidda dishay ninkeeda ay jeclayd oo maanta uga baahan inay u arto. Waxa ay u aragtaa inay xogtani tahay biyo kama dhibcaan. Haddii waxaas oo dhan aan ka soo tagnana, arrinta runta ah ee ay og tahay waa inay maanta u baahan tahay cid ay magan u noqoto. Cidda kaliya ay u aragto inay kaalintaas bixin kartaana waa Israa'iil. Aragtida uu qabo sirdoonka Yuhuudda ee ahayd inay ka faa'iideysan karaan Amiina oo sidatay jinsiyadda Urdun, Ustari iyo Israa'iil waxay ahayd mid sax ah. hase yeeshee shakiga ay saraakiisha Mossad ka qabeen inay ku adkaan doonto inay ku qanciyaan basaasnimadeeda waxa uu ahaa shaki aan sii ridnay. Amiina uma ay baahnayn in qorshaha sidaas u dheer loo galo basaaska dhigiddeeda iyo inay u shaqayso Mossad oo ay ka hor timaado dalkeeda iyo danihiisa oo dhan, waayo waxay ku jirta xaaladda uu qofka ugu nugul yahay in laga faa'iideysto. waxay intaas u dheeraa inay horeba u iibsatay diinteedii iyo dalkeedii, markaasna maba haysto wax intaas ka qaalisan oo ay ku gorgortanto ama iibkayso. markaana waxa u sii dheeraa taagdarro, quus iyo dayac ay dareemaysay Amiina. intaas ayaan ku soo gabagabeynaya qaybtii 6 ee taxanaha Amiina al-Mufti. waxaan insha Allah qaybta 7 ee tan xigta nooga bilaami doonaa Amiina oo si damir la'aan u aqbashay inay u shaqayso Israa'iil qaab basaasnimo ah, iyadoo basaasaysa dalkeedii iyo dadkeeda ay ka dhalatay. waxayna qaadan doontaa tababarkeedii u horreeyay ee